boqorka soo dhaweyntiisa halkan waxaan nimid 7 barkii subaxnimo 7 barkii subaxnimo aan nimid habeen horena maan seexan أنا سود وين يبغى دكتور من بدياريني سود وين تبقرك عاد بانو فرحسنا بقر سود وكسر نقطة كاجهوي سود وركتها هذا الكي إنا جراد عليه مركا جراس هو جراس فلاقة مو يسقنا وياني تيجوا قلافتنا لا ونحرسته تيجوا في ودينا يسقوا سود بقر كسود ويهرب ويري قلعت قالك أنتوا قلافتي آخريات بس يكون بلويتين يا أنا بقول لك كملين السكان ويننا بقر كيجا على إنه كسودو ذلك فرحات يقلب فرن كسودو سعيد والله وأنا فرحسنا حالتي تمام صحيح بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برتنا عقال انترناشنال هورتيسا waxaa si diiran oo ina hargeysa cid ku hadhin loogu soo dhaweeyay boqorka guud ee beelaha reer Sheekh Saxaaq boqor Cismaan aw Maxamuud Buurmadow waxa weeye nimankii qalbada jabtay ninkiina garaad cali aan waxaan u bixiyay boqorka magacyo kale aan bixiyay ninkan boqorka waxa la yiraahdaa garaad suuteeye garaad uleeye garaad garaacaya la yiraahdaa بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن تنير أيها كتير دتكي سود ويني بقر عثمان أو بورمدو waxay ii sheegtay inay cadceeda u taagan tahay sidii ay u soo dhaweyn lahayd boqorka geeska Afrika ahna boqorka Somaliland waxa weey maanta looma kala hadhin shacab madax iyo mijo soo dhaweyntii boqor Cismaan oo Buurmadow tayri waxay cabirisay dareenkeeda cabirisay eedaday baan la socdaabay igu tiri macnaha waxaad ku qiyaasi kartaa inay inan yar oo fariida oo ma garanaysa marka dhiigii reer Sheekh Saxaaq ku jiro ayay ahayd maanta waxaan u taaganahay inaan soo dhaweeyo boqorkaygii boqor Cismaan Maxamuud oo Buurmadow oo dalkeen badan kaga maqnaa maantana ku soo foolay inuu yimaado dalkiisa Soomaaliland iyo ciddiisa hooyo waxaan leeyahay soo dhawow gacmo furan iyo waji furan ciidaadii iyo dadkaagii oo ku jecel iyo dawladdaadii oo ku jecel baan leeyahay hadal uu dhawaan u jeediyay boqor Cismaan oo Buurmadow oo ku sheegay in garaad cali adigu saad warag wallahi aniga fakarkayga markaan ka hadlo hadalkaas waxaan leeyahay boqorku ku mahadsan yahay oo ninaan haybtiisii aan noqon bad haybtiisiina bartay ina garaad calina waxaan leeyahay qoladaadii mugdiga ku jirtay inuu mugdiga ka soo saaray boqor Buurmadow daqiiqisa baan leeyahay magacaygu waa Raqiya Axmed Xasan halkan waxaan u soo dhaweynta boqorka Somaliland aad baan soo dhaweynayaa maanta aad baan ugu faraxsanahay shucuurteeda lama soo koobi karo boqorka soo dhaweyntiisa halkan waxaan nimid 7 barkii subaxnimo 7 barkii subaxnimo aan nimid habeen horena maan seexan أنا سود وين يبغى دكتور من بدياريني سود وين تبقرك عاد بانو فرحسنا بقر سود وكسر نقطة كاجهوي هذا الكيو إنا جراد عليك وتلماوي تورك واجب كيسوي وكا هذا الكلام وحنا كتير وهذا الحقيقة وحديث بنقوله وأنا أقول رحسنا بقرك وحسود وين ياكل تاجي بقرك تحمل بالسعيد Buurmadow أي تاجي تلي يدبر سود ويننا إلى ميريه بنا لو قلت له دبلها يعني لو سود ويننا يعني لو قلت له تلفوننا لو قلت له أصلا سود ويننا هذه أدنى سود ويننا تلي يدبر سود ويننا قرني ما كسود ويننا سمعنا ترني ما كسود ويننا ما شاء الله ما كبر شعورتي اللي بس وكل كرامات شقوا حنا هو نغني مي حنا يمكن سقوا كان حسنية هذا تبع شو من هي نبور ما وده هي نوعنا كروح هيني مركز ما شاء الله وأبقى أحسن وياي مال معيوب بقر Cismaan oo Buurmadow waxa معارض بوها maalmaha uu soo wartay معارضka waxa weeye معارض maaha mar haddaan ku qaranimadiisa waxba ka sheegayni shakhsiyad wax ka sheegay maaha معارضtaasi soo waragtaa hadalkii ina garaad cali isaga muxuu ahaa sidaakiisa isaga aha marka garaas waa garaad fallaago muu isaguna weeyaan intuu galaaftana ilaa u naxariisto تيجي في ودينا يسقى سوق بقر كسود ويهرب ويري قلعت دقالك أنتوا قلافتي آخريات بس يكون بلويتين يا أنا بقول لك اللي كملين السكان هي هذه مقعة كبلة ما مسؤول مقعة يقول هي فرحي قاسم محمد وحنسود وينا يا بقر كيس كأفريقيا محو هاي وحنا بقر سود وهو تلك هاي هوية تمي أنا بدا كسود وعيد هذه هوية كسود وعيد هذه محو هاي أمي في عم بقولنا هاي دليرية محو هاي الدواية البوال قوين يعني ديار جروبي كسود وهم بليان كلها هاي هل كان كجا هاي السومال لأنه حلب مدحونا من الملح ولا توا سلامته هاي مسبحي عبدي مدحونا قرن كنا وسلامي هاي إن شاء الله سجنا مرديرات عبادة الصبن بينه ورجيليا هذا اليوم بقر كوشة جاي ميكينا جرال على الله هذا بس هذا المحور هذا الكاسدين جاي بوحشرة وكا ده بقر كبير مش يجي يدي سماها لكن أنا وحنا لا هاي
waxa boqorku sheegay unba da muhiimada bismillaah magacay waa Shabcaan Habi waxaan soo dhaweynaynaa boqorkayga halleena ku soo dhawow dalkaaga farxad iyo qalbi furan ku soo dhawow سعيد والله وانا فرحان حالي تمام سيحن ها ما سيحن soo dhaweynta boqorka ها ادي ديغا xoog ii shaqeeya aniga waxa fariin u diraysaa ninkii garaad furaash uu ku tilmaamay de kulli waxa sirfa wax jiro noo fasilayo waxa leeyahay boqor waa maasan tahay maadaama sirta noo sheegtay wal maasantii waa leenahay